halkudhagyada ogaal reediya ayaa waxaa ka mid ah runta sheeg xataa hadday dacar ka kharaadhahay. gesiga dhulkiisa busha u horseeda gerida dishaay geedka habo gesiga dhulkiisa busha u horseeda gerida dishaay geedka habo. تعسي إنا لله وإنا إليه راجعون. رئيسul wasaarihii hore ee Soomaaliya naxariistii janna Allah ka waraabiye Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ayaa ku geeriyooday dalka Mareykanka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota habeennimadii Jimcaha ahayd ee bisha January ay ahayd 31 sanadkan 2014. haddaba waxaan soo qaadanaynaa taariikh nololeedkii ra'iisul wasaaraha oo kooban. naxariistii janna Allah ka waraabiye Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Xasan wuxuu ku dhashay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee dalka Soomaaliya sanadku markuu ahaa 1924 xilligaas ay koonfurta dalka Soomaaliya ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyadii gobonnimadoonka Soomaaliyeed ee horaantii sanadkii 1943. allaha u naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen wuxuu xubin firfircoon ka noqday dhaqdhaqaaqii xornimadoonka Soomaaliyeed ee Somali Youth League ee marka la soo gaabiyo loo yaqaanay SYL wuxuuna ka mid ahaa saraakiishii ay maamulkii maxmiyadda ee qaramada midoobay ee la oran jiray United Nations Trusteeship of Italy sida weyn ula shaqayn jiray. sidoo kale wuxuu xubin baarlamaanka ka noqday baarlamaanadii rayadka ahaa ee dawladihii madaxweyne allaha u naxariistay Aadan Cabdulla Cusmaan iyo allaha u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. wuxuuna dalka Soomaaliya ra'iisul wasaare ka noqday muddadii u dhaxaysay 14 bishii Juun ee sanadkii 1964 ilaa iyo 15 bishii Julaay ee sanadkii 1967. afgembigii aan dhiigu ku daadan ee ay ciidamada dalku kula wareegeen awoodda dalka Soomaaliya allaha u naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen wuxuu ka mid ahaa xubnihii loo tacaabay xabsiga guriga muddo kadibna laga sii daayey. dawladdii dhexe ee Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka ahaa allaha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre waxaa allaha u naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen loo magacaabay danjirihii dalka Soomaaliya u fadhiyi jiray golaha guud ee qaramada midoobay dabayaaqadii sannadihii 1976 ilaa iyo 1978. wixii intaas ka dambeeyeyna wax mas'uul ah kama qaban dalka Soomaaliya. allaha u naxariistay ra'iisul wasaare Cabdirasaaq Xaaji Xuseen wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiintii Soomaalida ee sida weyn uga biyo diiday soo gelitaankii ciidamada dalka Itoobiya ee gudaha dalka Soomaaliya dabayaaqadii 29 bishii December ee sanadkii 2006. wuxuuna ka qayb galay bannaanbaxyo looga soo horjeeday oo ka dhacay dalka Mareykanka. naxariistii janna allaha ka waraabiye Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Xasan wuxuu ahaa waddaniyadu aad ugu weyn tahay jecelna Soomaalinimada mar walbana danta guud ka hormarin jiray midda gaarka ah. anigoo Xasan Cabdullaahi Cumar Karatee kuna hadlaya magaca Ogaal Radio dhammaan shaqaalaha iyo wariyaashaba waxaan tacsi u diraynaa guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya naxariistii janna allaha ka waraabiye Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Xasan. gaar ahaan waxaan tacsi u diraynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo xigtadii uu ka baxay naxariistii janna allaha ka waraabiye Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Xasan.
waxaan marxuumka ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo qaraabadii xigtadii iyo ehelkii uu ka baxayna uu samir iyo iimaan ka siiyo aamiin 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 gesiga dhulkiisa gusha u horseeda gerida dishaay geedka habo gesiga dhulkiisa gusha u horseeda gerida dishaay geedka habo haddaba waxaan khadka teleefonka ku tiigsaday cabdiwahaab xaaji xuseen ay walaala yihiin naxariistii janna allaha ka waraabiye ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen wuxuuna yidhi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anigoo ah cabdiwahaab xaaji xuseen marxuumkii cabdirasaaq xaaji xuseen walaalkiisa oo fadilka reer xaaji ku hadlaya waxaan Soomaaliya oo dhan baan u tacsiinayaa maxaa jira Soomaali buu ka dhintay waana la marag furay inuu Soomaali ka dhintay waana la marag furay marka ilaahay waxaan uga baryaynaa isaga jannatul firdaws inuu ka waraabiyo ceeb kalama u tagin adduunka ilaahay afkiisana kalama tagin waa adduunka oo dhan baana markhaati furahaya marka annagana hadda sharaf iyo waxay noo tahay iyo magac bay noo tahay Soomaaliya oo dhanna wixii uu qabtay baa u yaalla marka waxaan u taxdiinayaa kulli dadkii Soomaaliyeed meelay joogaan sida adduunkaba maanta oo dhan meel walba isaga looga taxdiyayo ama looga duceeyo marka sidaas oo kale waxaa weeye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo waayo xasan adigana xasan waa mahadsan tahay waxaa tahay maaragtay annaga daayagii iyo xidhiidhahayagii baa tahay ilaahay maaragtay ha ku sharfo adigaas waxaan kaloo khadka teleefonka ku tiigsaday cismaan xaaji nuur yuusuf oo ah odayaasha waaweyn ee dhaqanka jaaliyadeenna taariikhda Soomaalidana si aada ula socda wuxuuna yidhi xasan waa idin salaamay adiga iyo shaqaalaha reeriyo ogaal waxaa sharafiyaha iyo farxad inaad galabta waqtiga taale aqaarisiiseen marka wax badan ku hadli maayo kama hadli karo waa arrin aanan carabkayga u dhammayn karinin diinada ku timay ummadda Soomaaliyeed anigu reer u tacsiin maayo waxaan u tacsiinayaa ragga Soomaaliyeed cabdirasaaq xaaji xuseen geeridiisa ilaahay jannada ka waraabiyo doorarkiisa uu soo marana anigu ma tirin karo sababtoo ah hataa xayaatada uu u dhintay hadda geerida u dhintay waa ilaahay iyo amarkiisa laakiin xornimo dalkada ku saabsanayd marka jamiic raxma allah siiyo inkaas waa nin Soomaali u ahaa ninka soo xishoonayaana waa uu ogyahay ama qaranka Soomaaliyeed hawlka soo qabtay waa uu ogyahay nin kasta oo siyaasadda la socday wuxuu kulba aniga marka waxaan leeyahay Soomaali ilaahay salka ka siiyo waa ilkafoolo dhacaya oo aan dibna loo helin carruurta ardayku ka dhacaan u soo baxa ilka xareed hadday qofka waayeelka ku ka dhacaanin ma soo noqonayaan ilka dambena male inkastoo bilo iyo qoryaha loo geliyo marka waa qaranka Soomaaliyeed waxaa ka tegey nin qaali ah oo hornimada Soomaaliya ka soo shaqeeyey manaasib badanna qabtay waxa waa maanta haddaan walahayn gurigaas cabdirasaaq xaaji xuseen baa leh beertaas cabdirasaaq xaaji xuseen baa ka tegey intaasaa ugu filan marka taas halkaasaa kaga baxaya waxaa jira geeri ka sii horeysay oo haddaan u waayey waa siyaasiga caanka ah cabdilcasiis nuur xulsi waanu isaga labadeeda isku xisbahaynba waxaan xusuusnay hadda maalintii 3 uu Dr. Saris ku dhawaaqay si ay tahay baarta Soomaaliya Kenya aniga iyo cabdilcasiis ayaan ku jirno waxaanu gelinay dariiqyada
وقلنا الدريقية وقالت كاسة فيش كونيرنا كفينا الصبلانة كروجة السوري ومن لا يقانوا جيبسنا كواهي يقانوا بركني هذيك وحنا راضي الله كان شيء أولي كان عبد الرزاق وزير الداخل وحاسحب السدوي علي محمد العاوي مغرايو على هجري بانوي مغيري قري قرطي تضاف ويكون تطفبان بس يعيش شيء عبد العزيز له الجيران والقعاي مركا والسجن وارد تحسين إلى يغير الرسي وطن إنك صار أنا مكمل أيوة أنت كنا حيسار أنت والخصوص جيريس ومضى مركا وإذن ما أدنى يهيري وقال جزاكم الله خير جزاكم الله خير وإذن كما أدنى يا صومالي وحد قبر إنسانين سكارتين تأسوين إنسانين ذلك أبو جلال ساتكم الله حسن إلهي توزيع الحسيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan tacsi tiraayada uga diraynaa magacayga waxa la yiraahdaa Xaliimo Axmed Shire waxaan joogaa magaalada Mareykanka joogaa Minneapolis joogaa waxaan halkan tacsi tiraayada uga diraynaa geeridii ku timid Cabdirasaaq Xaaji Xuseen walaalkayo oo aan aad iyo aad uga tiraayaysannahay xaqii baa yimid إلهي سبحانه وتعالى نحريستي كنا إنو سيو وعن تعسيرتي رأيانا أدرى هيا أريد حليمة أحمد شراء ومدى الصوماليات ميل والبقى يتشوغان قود أهان يقار أهان با ديبا وحا أسيدرى هيا أهل كي وكجريودي حاسس كيسي عروس كيسي ولاليس أهل الذي وكجريودي oo qoyska hoose ahaa ayaan waxaan u dirayaa tacsi tiraaya leh Cabdirasaaq aniga daa'idii ku dhawaa baan ahay maalinta loo dooranayo ra'iisul wasaarihi labaad oo Soomaaliya waan joogay xamar baa isla joognay gabadhiisa furada marka ay dhalatay iyo marka habeen u dhaxaysay iyo isla habeenkii inay dhalatay ma aqaan laakiin ballayba waxba daqiiqada u dhaxeeyay wax weyn uma dhaxaynin Cabdirasaaq ilaahay naxariista jannaha wuxuu ahaa oday Soomaaliyeed wuxuu ahaa nin aan dadku u kala sokaynin nin wuxuu ahaa kasoo shaqeeyay calankeeda kasoo shaqeeyay oo kow dadkii soo bilaabay isweel buu ahaa aakhirkiisiina hadda ku aakhirtay asagoo oo isu soo dhaweynaya Soomaali ilaa iyo isweel ilaa hadda oo uu geeriyooday wuxuu ahaa oday Soomaaliyeed إلهي وحنا وبريا يا شبابي إلهي إنه كورابي أسرع أنت كلو جريو تيبا يكون رئيسي أنت كتب لي سوا إلهي وحنا وبريا ناس شباب الرحمن الله إنه كورابيو آدي بان حقي بعيد بركة حق واحد ما بنا معها لكن ترى يوم بنقول رابي إلهي وحنا وبريا ناس شباب الرحمن الله إنه كورابيو أنا غير السبري إيمان سابق إلهي إنه نرسيه أنت سوف تبجرينا هيا إن شاء الله بالكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهجاء ديسل وحنا قد جيسان سان وقال راديو موجودة دارو كذي هاي سيديتن يسيديت دبع سقال FM gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda geerida dishay geedka habo gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda geerida dishay geedka habo وهجاء ديسل barnaamijkeena caawa gebi ahaanba inta ka hadhay wuxuu ku salaysnaan doonaa tacsiil loo dirayo qoyskii iyo qaraabadii iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed oo uu ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya naxariistii janna Allah ka waraabiye Cabdirasaaq Xaaji Xuseen haddaba istuudiyaha radio Ogaal waxaa caawa nala jooga Dr. Maxamed Ibrahim oo asawir barnaamijkii axadlaha ahaa ee caafimaadka aanu caawa u baajinay tacsida awgeed waxaa kaloo istuudiyaha nala fadhiya Dr. Qaasim Xirsi Faarax oo macallinka ah jaamacadda York ee magaalada Toronto waxaa kaloo istuudiyaha nala fadhida Dr. Saciida Cali Maxamed
dhammaantoodba waxay u fadhiyaan caawa ayagu laftigoodu inay tacsida nagala qayb qaataan barnaamijka caafimaadkana caawa hakad waxaanu u gelinay barnaamijka tacsida awgeed gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda gerida dishaay gedka habo gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda gerida dishaay gedka habo waa hagaag aan ku hormaro Dr. Maxamed Ibrahim Dr. Maxamed Ibrahim naxariistii janna Allah ka waraabiye ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cabdisaaq Xaaji Xuseen ayaa ku geeriyooday magaalada Minneapolis jimcihii habeenimada jimcahayd maxaad nagala qayb qaadanaysaa tacsida bismillahir rahmaanir rahiim xasan aad baa u mahadsan tahay barnaamijka caawa aan ummadaas oo dhan diyaarka u ahayd waxaan u joojinay heer qaran markay ay gaarto Soomaaliya oo dhan in ay tacsidan ka wada qayb qaadato prime ministerkii hore Allah u naxariisto Cabdisaaq Xaaji Xuseen oo taariikh weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ilaa ay Afrika iyo Carabta Muslimka Islaamka oo dhan waxaan ugu tacsiyeenayaa eheladii oo halka habeen naga xigo inkastoo qof naga xiga ayna jirin eheladii oo dhan meel kasta ay joogaan qaraabadiisa hoose xaaskiisa iyo reerkiisa anna inta oo Soomaaliya meel kasta ay joogtana waxaan ugu tacsiyeenayaa tacsidaas heer qaran in laga qayb qaato loona duceeyo waana isku soo noqon doonaa insha Allah gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda gerida dishaay gedka habo gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda gerida dishaay gedka habo Dr. Qaasim Xirsi Faarax tacsida maxaad nagala qayb qaadanaysaa naxariistii janna Allah ka waraabiye Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Xasan بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون الله سبحانه وتعالى وحاو إنه شاقي إن مركه هراتبا نلقو امتحامي نلشينا عافمات كينا دقالهنا إيا دادك آنو جعلنا هاي آنو وينو انتا صعدا مركه امتحان جيين وحاو إلهي جري أن بشارة أو بشارة حقاتين كوا أرانيا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون marka ilaahay anaga dhigo kuwa sidaas u sabra waxaan marka koowaad aan tacsi uga dirayaa dhammaan eheladii ra'iisul wasaarihii Soomaaliya ee hore Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Xasan marka intaas kadib waxaan isaga ilaahay uga baryayaa in uu jannadii iyo naxariistiisii uu siiyo oo jannatul firdaws Allah ka waraabiyo waxaan marka kadib oranayaa ummadda Soomaaliyeed in ay ogaadaan in qof walba waxa uu ummadaas Soomaaliya u taray ay taariikhdu xusi doonto haday wanaag tahay iyo haday xumaan tahayba ayna soo bixi doonto marka in inta dambe ee xil Soomaaliya ka qaban doonta ay ku taxadaraan in oo ku dadaalaan in ay noqdaan kuwa taariikhda baaldahaba ka gala oo wanaag sameeya wanaagoodasna lagu soo xusuusto marka ay dhintaan waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Qaasim Xirsi Faarax دكتور سعيدة علي محمد تعسيده نوسو قلبي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حسن آد بهرتر أمها تصنتها فرصة دان قالقة وأغنى سيسي نمد كالي وحان أمد الصوماليات ميركستو يشوغان أن يو قار أهان فاميلي ريحة حسين يو ummadda Soomaaliyeed oo idil aanu tacsi ugu diraynaa gaar ahaan xaaska uu ka geeriyooday Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ahaa prime ministerkii Soomaaliyeed oo ahaa nin aad ugu soo halgamay Soomaalida xornimadeedii kuna lahaa sharaf Soomaalida iyo adduunka oo dhan meel kasta oo laga yaqaanay meel kasta oo adduunka dadka joogaan waxaanu ilaahay aan uga baryaynaa ilaahay wuxuu yiri kullu nafsi daaqata min al-maut inagoo idil waanu dhimanaynaa marka sida walaalkay uu xusay waxa weeye hadaanu nahay intaan adduunka ku noolnahay ma sharaf ku leenahay mar hadii la dhinto nin walba waxa hor yaala waxa uu adduunyada ku sameystay marka waxaan
wanaagsan haddii aanu nahay ilaahay uuna abuuray in nala xisaab adduunyadan aakhirna waana kula xisaabtamaya adduunkana in aanu sharaf uga tagno oo nala ku xuso maaragtay sharaftii uu qof walbaba adduunyada uu ka samaystay cabdisaaq xaaji xuseen wuxuu ahaa nin aad sharaf ugu leh ummadda soomaaliyeed sharafna ku dhintay waxaanu uga baryaynaa in ilaahay qabrigiisa u waasiciyo sida adduunka looga jeclaan in aakhiro looga soo dhaweeyo oo u noqdo marti aakhirana laga jecel yahay waxaan ilaahay aan uga baryaynaa inuu ilaahay na jannadii ka waraabiyo waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay doctor saciida cali maxamed dhegaystayaal caawa khadka telefonka ayaanu idiin furaynaa si aad tacsida ugala qayb qaadataan naxariistii janna allaha ka waraabiye ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdirasaaq xaaji xuseen xasan waxaad naga dhegaysanaysaan ogaal reediyo mawjada dherarkeedu yahay 88.9 FM waa hagaag inta aan hawada ku jirno si aad tacsida u soo gudbisaan waxaad naga soo tiirsan kartaan khadka telefonka ee 45688 إنا لله وإنا إليه راجعون أنيقو أقدم عبد الله عمي دليش وحا قطعسلين يا الله قلنا حريستي عبد الرزاق حاج حسين ونقطعسلين يومد الصوماليات ونني أهلية ديسي وروها نكرتله وحان أنيقو سلتوغي ونتاقنا أسبو مدحدي هوتي oo dhan oo musuqmaasuq ku eedeeyey oo bilaabay wax buustaroose la siiyey oo wada rugseeyey baa taagnaa nin wuxuu ahaa la dagaalama musuqmaasuqa nin la dagaalamuu ahaa yacni ummadda shacabka loo adeega in dhibaato loo geysto ayuu ahaa nin geesi uu ahaa nin soomaali uu ahaa waxaan leeyahay وكسر الذين يا إنا لله وإنا إليه راجعون الله قلنا حريصته عبد الرزاق حاج حسين ومد الصومالية دولنا سبري إيمان الله كتيو إلهينا قلنا حريصته إليه ديسي يا غرابة ديسي يا حقوق ديسي إلهي سبري إيمان كتيو أنا ما كسر هذا يا دولة دجاج كسر هذا تركيا magacayga iyo cabdirasiid jiraqanle waxaa la dhamaan family roger khalna magahooda iyo xaaskayga maxamuud karaani iyo halkan taxsiil ka diray bismillaahi raxmaani raxiim horta hore waxaan salaan qaaliya u dirayaa baaba radio ogaam oo hormuud yahay xasan karate aad baan idin salaamayaa salaan kadib waxaan ku bilaabayaa inaan idhaahdo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun cabdirasaaq xaaji xuseen ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxaan uga taqsiinayaa dhammaan eheladii qaraabadii xaabtii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed beridii ku timid ra-iisul wasaarihii hore waxaa leeyahay samri imaan allah naga wada siiyo dhammaanteen nin qaali oo ummadda ka wada baxay weeye waxaan aad ugu faraxsanahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto inay maanta ka midaysan tahay tacsida waxaana weeye ninkaas soomaalinimadii ugu yiqiinay ay dadka ay ku jeclaayeen ilaahayna waxaan rajeynayaa ummadda soomaaliyeed inuu qulubtooda isku soo wada hadiyo oo wanaag iyo sabon ku wada noolaadana diyo aad baa idin salaamaya mar labaad xukunkana ilahay waxaan uga baryaynaa xariiftii janno inuu siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم حسن كروتير برادر أربعة أمهات سنتهي فرصة تناد نصيصي راديو وقال يعني وقال قيب قال إنه تعسيده يا بروديق ذا عبد الرزاق حاج حسين هنا ذير ما قاعد وقال وصل لي رهدا نانستي ده وحنكون والله سويدن وحنكمل هاي غير جبلان لما كان غير كونسلان دنوان هاي أنا كوهل ليا جالية الصومالية كان سائلي سنة يا حسن كروتير فرصة كان قال لي قاعد راديو وقال ونسيي وحن تعسي ودريا إهلدي يا قرابدي وكبحي عبد الرزاق حاج حسين إلهي نوحن وقبريا سبحانه وتعالى جنة الفردوس إنه كورابيو قبري سنة واسعيو قبري سنة ونوريو إهلكي وكبحينا إلهي وحن وقبريا صبر وكسيو بدل خير قبا وسيو آد يا آد بانكوكو مهدنا يا حسن فرصة كان آد نسيسي Thank you very much, brother. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي هو عبد الرزاق كنا الودك النذرلاند حسن عبد الله عمر أحسكر تهدى كوسلامية أنا كنت هذه السنة فرصة قال لي هذا نقطة جسدين كريل هذا حسن كرتين
waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed meel ay joogtaba waxaan uga tacsiyanayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allah u naxariisto samir iimaan Allah ka wada siiyo Soomaaliya dhammaanteed gaar ahaan shacabka reer Puntland iyo qoyska gaar ahaan u ka soo jeedo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya 1964 ilaa 1967 wuxuu ku geeriyooday soo 31 bishan magaalada Minnesota waddanka Mareykanka ilaahay waxaan uga baryaynaa in samir iimaan dhammaantiin naga wada siiyo isagana jannadii firdawsi ilaahay uu ka waraabiyo waxaan kaloo mataqaanaa anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan qaaliga aan tacsiir kalena uga dirayaa garaadkii guud ee beesha Absame isna ku geeriyooday magaalada Jigjiga ilaahay ha u naxariisto ummadda Soomaaliyeed aan leeyahay samir iimaan Allah ka wada siiyo aad baan u mahadsantahay xasan cabdullaahi cumar xasrate assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان آدي آد أنا السلام يا أنا غفر حسن هاي فرصة النسيجي راديو أوغال حسن كراتي وحان تعسيب كيرانيره عن أدير يا أدرساء حاج حسين ولغوصو حسوسا دون كلمة بيوري أو تاريخ لك الشيء أو أحي كرتي إيوان وحان كعد سنة دولة كوميلجا دولة فدرالية سوماليا in lagu aaso Cabdirasaaq Xaaji Xuseen meesha uu ka soo jeedo deegaanka uu ka soo jeedo oo ah Puntland wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan idin salaamay raadiyo ogaal waxaa ka tacsi uga dirayaa ra'iisul wasaarihii labaad ee Soomaaliya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ونن أبقى للبؤة يقفوا إغلاديسي يقرابديسي يدكتو كتغي أمدي جعله أيها كو تعسينا يا أنيقو أبيريو ودقن ودنك النيرلان أما قولا قفل بسوء يقال والسلام عليكم ورحمة الله gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda geerida dishaay geedka habo inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun anigoo ah Faaduma Cali jaamac laqluuma waxaan taasi u dirayaa waxaa la yidhi waa geed dabalo caleen daran waa doog dhaxalkiisu daataa waa doog qof maalin laga diro dadkan waa u kala dambeeyaa inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun waxaan taasi fiiraanye leh ilaahay baa ufsaday aan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed geeridii ku timid Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ahaa nin Soomaali ah oo Soomaalinimo Soomaalidii leegii ilaa maantay Soomaalinimo u soo taagnaa laxdintaa waxaan ka leeyahay anigoo Faaduma Cali laqluuma oo anigana u waalidkay ahaa waxaan horta uga tacsaynayaa xaaskiisa Khadiija Burxan waxaan u tacsaynayaa eedabulaaxa iyo carruurteeda waxaan u tacsaynayaa adeerkay Cabdiwaaxid Xaaji Xuseen waxaan u tacsaynayaa adeerkay Cabdiwahaab Xaaji Xuseen waxaan u tacsaynayaa dhammaan reer Xaaji Xuseen oo dhan iyo bahda reer Suxiyo oo dhan meel ay joogaanba ilaahay inuu samriye iimaan naga siiyo geeridii ku timid abwaankii waddanigii Soomaaliyeed ee leega madaxdii shalayto Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ilaahay waxaan uga baryayaa jannadii firdawsa inuu waraabiyo waxaa halkaan ila fadhidoo kaleeto dabar ayaduna aad uga tiiraanaysanoo Soomaalida iyo caa'iladoo dhanba uga tacsiyeynaysa oo la yidhaahdo odan daaday oo tiraale iga gaarsii tacsidaas reer Xaaji Xuseen oo dhan iyo reer Suxiyo oo dhan waxaan leenahay ilaahay samriye iimaan ha ka sii iyo Soomaalidoo dhan iyo muslimiinta iyo intii taqaaniba Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allah u naxariisto adiguna waa mahadsantahay Allah kaa jaasiyo walaalle السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون أنا أحمد نور كنا الودن كالنذرلاند وعالك تعسيق الدرايا في سوساري صوماليا
halgamaagii soomaaliyeed waddanigii ugu qiimaha badnaa ee soomaaliya soo mara una dhinta maantay dhaawac uu gaarsiiyey cadowgii soomaaliya gumaysan jiray waxaan leeyahay samir imaan allah naga siiyo soomaaliya oo dhan insha allah inaa lillahi wa inaa raajicuun waxaan rajeynaya in lagu aaso waddankeena gaar ahaan stateka puntland insha allah haddii ilaah yiraahdo wasalaamu calaykum waraxmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا حسن كراتي راديو أوغال فرصة أي نسيين قالقة معنا هالكارينا عن كعسيدنا مع عدك إن كل يبنو وحن لنا آدي آد بأمها السنتين إن وحن هالكام تعسو قدرينا هالجماعة وينا الله أمنا حريص تعبسيق حاجة بسين وكو جيريو دي مقالة مينيسوتا وحن لنا إنا لله وإنا إله راجعون waxaan uga tacsiinaynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan qoyskiisii caruurtiisii iyo ehelkiisii iyo xaaskiisii iyo dhammaan reer Xaaji Xuseen oo dhan iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahi jannadii firdawsahda ka waraabiyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan maadaama uu ahaa mas'uul Soomaaliyeed ee soo maray dalka Soomaaliyeed ragii ugu cadaaladsanaa ee uu ma aragtay la dhihi karo gobonnimo doonkii Soomaaliya iyo xorriyadii iyo wanaagii Soomaaliya ay soo martay ragii ugu sharafta badnaa ku jira waxaanu leenahay ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo waxaanu jeclaan lahayn in lagu duugo gobolada Puntland oo isir ahaan ka soo jeedo sida assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo magacayga la yiraahdo Sucaad Maxamuud Caymad kula hadlayo magaca reer Caymad iyo hooyaday Caashiis Cali Magan waxaan halkaan taas ugu dariyaa oo dhammaan reer Xaaji Xuseen aan geerida ku timid abtiga Cabdirasaaq Xaaji Xuseen marxuumka Allah u naxariisto jannadii firdawsana geeyo qabrigiisana u waaso inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aniga Muuna Salaad Gabeere kuna hadlayo magaca reer Salaad Gabeere iyo hooyaday Faadima Aadan Cabdille waxaan tacsi u diraynaa reer Xaaji Xuseen dhammaan geeridii ku timid Allah u naxariistay awoodii Cabdirasaaq Xaaji Xuseen tamari iimaanna Allah ka sii reerkiisa qabrigiisana Allah u waafajiyo janno firdawsana ilaahay uga tooweynaa aamiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أبيريو كل ودنك هولد وحان أدو السلام يا هالكان حسن كراتي ونسي جانس كان قفل من تعسيزي كديبتو سبيشال رادي أوغاو وحان بوليب أدو سلام يا بشير يانيو وصفي عن الله شخير a best friend long time يودن بيسي رادي أوغاو ياس يا بشير يانيو كل يسو برنايا waxaan ka ugu tacsiinayaa Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen kulligan waxaan leenahay intii Soomaali ku abtirsata ama afka Soomaali ku hadasha qof culus baa naga tagay samari iimaan ilaahay ha naga siiyo kulligan waa ka tacsiinaynaa eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii ka tagay assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan halkan taasi uga dirayaa tiraanyale prime ministerkii hore ee Soomaaliya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Xasan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan marxuumka ilaahay uga baryaa jannadii firdawsana ka waraabiyo eheladiisii qaraabadiisii iyo asxaabtiisiina samir iyo iimaan ka siiyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanna samir iyo iimaan ka siiyo prime minister Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ilaahay naxariistiisa naasiyo Soomaalidu waxay tiraahdaa ninku hadduu dhinto oo tago magac iyo xabaal baa ka hara Cabdirasaaq wuxuu ahaa prime ministerkii labaad ee Soomaaliya yeelato muddadii 3 sano ayaga xilka hayay Cabdirasaaq wuxuu aan ku ahaa qabyaalad uusan ku shaqayn aad iyo aad in qabyaaladda u nacab buu ahaa ilaahay naxariistiisa naasiye cadaalad hantida ummadda u dhaxaysa oo uu aad u dhowri jiray ilaahay naxariistaas iyo Soomaaliya maanta waxaa ka tegay min taariikhdeeda qaadaaba kaga jiray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun بسم الله الرحمن الرحيم كمان هذه وادي أسماء ومحمد هذا ساسكاتون halkan maanta oo kulan saskatoon waxaa ku sugan dhammaan odayaashii iyo maqaashidan
waxaana loo wada fadhiyaa allaha u naxariistee prime minister kenya aanu jeclayn xornimada soomaaliya maanta baqanaysa maaragtay halgankeedii iyo asaaskeedii u ah aabihii soomaaliyeed geeridiisii allaha u naxariisto cabdirasaaq sheekh xuseen runtii odayaasha halkaan hadda kuma soo koobi karno aynu ku wada fadhino sheekh cabdullaahi oo ah gudoomiye ku-xigeenka saskatoon adeer maxamuud oo daahir oo ahaa agaasimiyihii wasaaradda beeraha isagana waa uu joogaa odayaashii maxamed jaamac cabdikariin bakaal kulli soo koobi karo inta iyo halka aynu ku fadhino tacsida ayaynu u direynaa dhammaan soomaali meelay joogtaba waxaan ka rajaynaynaa oo aynu ka rabnaa insha allah duub ka dhici doonta magaalada muqdisho prime ministerkeena jeclaan maaragtay kulle waa uga barodeeqana ilaahay naxariis iyo nabadgelyo ha siiyo caruurtiisii oo ka dambaysay waa annaga maaragtay dalkaa soomaaliya usoo harnay jiritaanka iyo qarannimadeena soomaaliyeed sida loogu soo ilaaliyey oo ilaa iyo inta maanasooto uu joogay uu soomaalida unitigeedii u ilaalinahayay inaynu markaa raadkiisa aynu raacno oo aynu ilaashano waxa naga dhexeeya oo soomaalinimada ah oo maaragtay odayaasheenii oo dhan ay usoo dhinteen runtii meel cidlaa uguma tegi karno waa inaynu markaa midnimadaas aynu ka dhaxalnaa waa uu nool yahay iftiinkiisii baa nool cabdirasaaq ma uusan dhimanin waa uu nool yahay waktigiisi unbaa tegay laakiin waxaan jecelnahay in maaragtay arrintii lagu yaqiinay oo ahayd karti hufnaan rag badan oo ku sifooba iyo dumarba in aynu helno si soomaaliya ay qarannimadeedii u sugnaato dhaxalkii oo nooga tegay inaynu ceshano ilaahayna waxaan uga barinaynaa dhammaanteen sida mandela loogu barowdeeqay ayay soomaali maanta cabdirasaaq ugu barowdeeqaysaa meelay joogto waad garanaysaan saskatchewan saskatoon meeshay ku taallo waa cornerka jaamacadan dhalinyaro badan oo maanta taariikhdaas aynu warkahayn saakiin maanta ayaa loo sharaxayay oo ku dhalatay meelahan si ay u xajistaan waxa ka dhaxeeya oo qarannimada ah tiirarkoodii ayuu ka mid ahaa cabdirasaaq marka dhammaanteen waxaan leenahay allah u naxariisto jaaliyadda soomaaliyeed ama federationka soomaaliyeed ee somali canadianka dhan ah waxaynu tacsiib aynu usoo wada jeedinaynaa allahna u naxariisto ayaan soo gabagabeynayna insha allah gesiga dhulkiisa gusha u horteeda gerida dishaay gedka habo بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan aan ku hadlay afka jaaliyadda soomaaliya ee degan magaalada saskatoon gobolka saskatchewan waxaan soo gaartay geerida ku timid prime minister hore soomaaliya marka waxaan oga tacsiinaynaa geerida ku timid walaalkeena cabdirasaaq sheekh xuseen een oga tacsiinaynaa ummadda soomaali guud ahaan iyo faamiliga iyo qoyskii uu ka dhintay gaar ahaan marka waa arrin laga murugoodo nin wuxuu ahaa kolley soomaaliya taarikh kula soomaalidana meel kastoo ay joogaan dal iyo dibaddaba kolley geeriis way saameen wayna xasuusan doonaan waxyaalihii wanaagga ay usoo qabtay ninkaas marka geeridu waa xaq qof kasta oo ku nool adduunkan uu geeriyoon marka waxaa ugu fiican qofka taariikhdiisa ku qoray wanaag oo ummadda ay u tacsiyeynayso dadkoo dhan kulli xasuustaan فكل دولة بتكلم وراك ومدة صومالي وقسمي هي تاريخ ونكسل وقراية وكقراي تاريخ وكقراي بيج ونكسل مكا قفنا كل يوم كل بس كل يوم على حوالا وبكر كل يوم كيسي يفهم هيك يكتب هذا قفنا وحاول أن مدة ضبط كتير هذا فكمان كان عبد الرزاق وكتير هذا ومدة صومالي هذا يكتير هذا يكون جوان دبادي يكون جوان كلها بمانطة مكستي جوان مقع صومالي marka waan uga tacsiina mar kale geerida ku timid walaalkeen cabdirasaaq sheekh xuseen ummadda soomaali oo dhammaantood ka xun arrinta ayada marka waxyaalihii wanaagahay uu soo qabtay hadda kama sheekayn karno way banneed laga soo bilaabo dagaaladii maxaan ku dhahay soomaali lagu xoreyn hayay SYL ilaa uu maanta uu ka geeriyooday kulli intaa ummadda soomaali wanaageeda ayuu ka shaqayn jiray kulli nin wanaaggaan ku maqan ayuu ahaa marka waxaan leenahay qof kastoo soomaali waa inuu u duceeyo walaalkeena allah subxaanahu watacaala inuu dembigiisa dhaafo oo kitaabkiisa midigta laga siiyo
والدي سيدا صبر إلى إيمان وكسيه ومد الصومالي لنا صبر إيمان وكسيه مركا هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شك سولو وعن السلام يا كل جين وحان همبلية يبغادين الدريا حسن كراتي يراديو أوغال ونسيه فرصة دان قالقة إن أنو كتعسي أنو هل كان وجود بنا التعسي رئيس الوزراء صوماليا عبد الرزاق حاج حسين وحان لنا هاي إلهي جندي هكا ورابيو annagana Soomaali oo dhan samri iimaan naga siiyo iyo eheladii iyo qaraabadii iyo dadka ka tagay kulli waxaan aad u soo dhaweynaynaa oo aan jeclaan lahayn in lagu aaso gobolada Puntland Cabdirasaaq Xaaji Xuseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan deganahay dalka Suudaan magaalada Marba السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحانو تعسي الدريا إهلدي يدما قرابة وقدمتي عبد الرزاق حاجي حسين وحان ليحي إن ما هذا خيال أنيقو راجع وتعسي ديره لمان إهلدي وكجيريو دي عبد الرزاق حاجي حسين. إنا لله وإنا إليه راجعون. anigoo magacaygu leeyahay Maxamed Ali waxaan ku noolahay dalka UK waxaan taasi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaasatan ummadda reer Puntland waxaan leeyahay samir iimaan Ilaahay naga siiyo kulli taqatul mawt kulli nafsan taqatul mawt. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan taasinayaa rajaali hore ummadda Soomaaliyeed Cabdirasaaq Xaaji Xuseen in Ilaahay jannada ka doosageeyo سبرنا أي كسي وعلى حسنين على كسي إن شاء الله تعالى ساعة إنا لله وإنا راجعون. أنا مقعي لي هذا عبد اللطيف وكسوه الله ذلك النذرلاند وحال كان تعسيب تيرايا لو قدرنا الذي يفهم الكتري بدأ في الوزارية هي قرية الصومالي صومالي الله الحريسة عبد الرزاق حاج حسين وحنا الله أنها الذي يفهم الكيس السمري من الله كسيو يا أصحابته كتجي يضل كيبا يا أنتم مسلمين تمام إلى نحن نقول لنا إنه سندي فردوس كورابي آمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحن هالكن تعسير وبدر يا نجا عبد الغني أحمد حسن كنا الدلخ سويسرلاند جارهان مغاربة وسارنا رئيس الوزراء هريت الصومالية الله محرسته محرستي شنون الله كورابيو. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا عبد الرحمن حسن أوتشو ودنك UK عن تعسية تيرانية أدريا رئيس وزراء هراء عبد الرزاق حاج حسين إلهي نحريس ينزل هاسيو وحن تعسية أدريا فاميلي وكجيريودي Somali oo idin dadka reer Puntland dadka reer Jubbaland DDS iyo NFD ba iyo Soomaalida oo dhan gabigooda oo dhanba ilaahay naxariis iyo gaasiyo dhamaan anagoo dhan buu naga wada dhintay ilaahay booskiisa noo soo bixiyo asna ilkiis ilaahay u waasiciyo intaasaan ku soo salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jooga magaalada Helsinki waxaan taasi u dirayaa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allah u naxariisto dadkii iyo familkii iyo heladii uu ka dhintay samari iimaan ilaahay ka siiyo السلام عليكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا ورث علي السياب وحان أطعسيين هيا مرحومك عبد الرزاق حاج حسين ورمتي أن تفي عن أنا أقيل إلا بريم منيستر كأنتو النقضي إلا أنتو وزيرك الداخلية ضعها تاريخ دي صودا مع الله صعود أنا ولينا أرد بوح تاريخ دي سكشيكي يوهنكور لكن هذه اللي وصلها تفي عن وشيكي لها إلهي وحان قبر يهيا جنادي فردوسة إلهي ينوبي كتابك سجامع أنا ميكتا إلهي كتار أنك نقداشي إلهي نفد مين ومدو كتغي يقرنكو كتغي إلهي سمر إيمان سابدك قسيو واكو سلامة حسن كراتي وانا كوب مهد عدين هيا نولو واكو شعلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنيقو الفيعن شيخ أنيقا إيو ولاله إيو إلميق إيو إنتان جعلها ويدويت إيو وحن تعشيه وديرينا إن شاء الله تعالى إلكي وقبح عبد الرزاق حاج حسين إلهي حريص جنة عصيو برم منيستركي
soomaaliya oo hore marka ilaahay jannada ha siiyo adduunkanu ka tago xumaantiisa aakhara ilaahay jannada ha ugu bedelo intii uu ka tagayna ilaahay samar iyo iimaan saadaqe allaha siiyo intii dhimata dhammaan allaha u raxmada annagana ilaahay ha noogu daba raxmo gesiga dhulkiisa gusha u horteeda gerida dishaay geedka habo بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لله وإنا إليه راجعون حسن كرتاي راديو وقال كنت حسن فرصة أن أتبع نوفى إلى سنة عاوة نسيسي أنا ورغين هالكان تعفية بمن هالكان قدر وآدي أدب بمن وإهلي غرابة يميع كلها صوماليا أي كودنتين مجالة تورنتو إلى وقف أمير كودنتين وحان قبل هذا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا شيء سيد الحسين كرام إلهينا ونحريستو إلهينا وحان غبريا فملكيدي غير رفلة مالي جوغان إيا غير قرع أو دم تعسيبا نبدريا تعسيبا نوحا بريا أنيقا يا حاسكيغا شكرا أحمد شعبوح غير أحمد شعبوح مالي جوغان غير حليس فارح مالي جوغان وحان تعسيبا من لمدى أبدريا عبد العزيز نور حسي وقدرة بوسطن كيسي فملدي سنة وحان لا يسمري إيمان الله كسيو وحان كلو تعسيب أبدريا المدى إرقيني meelay kala joogaan daacadaha adduunka hooyadood habaryartay faadamaxaasi ismaaciil oo ku dhimatay iyadana toronto waxaan leeyahay samar iyo imaan allah ka siiyo intii dhimatana ilaahay samar iyo caafimaad ha ugu bedelo inta noolna ilaahay khayrka ha ku waafajiyo waxaan si gaara waxaan ugu dirayaa faadamaxaasi ismaaciil eeladeedii carruurteedii ilmo daariganay jimaal daariganay cabsara daariganay daariganay meelay joogaanba أمر إيمان قلت وحنا رأينا وغضب السيء إنا لله وإنا إليه راجعون أنا أقول هذا حريق الصومالية يقبط عكا لعوين تسبورتيغا تغييردا ترنطدا مغالا تربط جوكتا وحنا تعسال كان وضريا في حاجة حسين إلي أدونكي دعالدي سكرة جوغان اليجي الصوماليات بريم مصر كالصوماليات أبتصار حاجة حسين وقود انتي magaalada Minnesota ee Mareykanka waxaan leenahay qaranka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed ee buluuga ah samri iimaan Allah naga wada siiyo ilaahayna qalbigiisa u nuuriyo taasidan waxaa diraya anigoo ah bishaa saxisi iyo xaaskayga shukri sharaf aadan jeejeef cabdi muuse maxamed saalax najiib xasan geeseed bashiir xamdulle intii naas iyo kulligeenba waxaan leenahay samri iimaan Allah naga siiyo فارحوضي وراعي داود بارجيغو marka ilaahay waxaan ku baryaynaa reexa jirashan meel ay joogaan inuu samar ka siiyo qaranka Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeedna waxaan leenahay halyeeyii Soomaaliyeed u soo halgamay samar iimaan laga siiyo anigoo ku hadlaya baari sportiga gaar ahaan xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta xasan adiga waxaan runtii hawada ku maranayaa salaam iyo raadiyo ogaalba aad baa u mahadsantahay gesiga dhulkiisa gusha u horteeda gerida dishaay geedka habo gesiga dhulkiisa وهجاء ديسل وحنا دقيسنا سنوات ريري موجودة للركيدية سيديتن يسيديت دبع سقاو اف خط تلفون كوحنا نقولش دكتور عثمان أحمد حرارة وشوقة مقالة مينيابوليس دكتور حرارة كسر هو إذا عبر هلي وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا وعليكم السلام ورحمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون عبد الرزاق حاج حسين كنت وحوها قف مسألة يا قرن كالصوماليات حواليه كرا وقفك وجود بي وقف أحان مسألة يا قرن كالصوماليات حالكي وتابعين يا قرن كالصوماليات مسألة لكن قف أحان شخصي أحان وهو قفك كلوح ومسألة ما أنت أني قلبي أنت عن أقانه أنا أسأل هذا واحد سكوكم بالبيسي دشي جنوري ستح لذي مساجد شغل بكرة قدبة كورة تكني وأنت أسوي شيء عافمات كيسين إسبادية الله ونحريسته عبد الرزاق حاج حسين وهو قف رمتي آد ما تعلقوا مرغوني إلهي وحان أقبر يا نائنه مارتي جميع وفدوسي الكورابيو
ummadda soomaaliyeedna waxaan u baryaynaa inuu ilaahay samar ka siiyo laakiin cabdirasaaq runtii geesinimo wadaninimo dadnimo qof ahaan oo bini aadamnimo ah ayuu maaragtay mutaystay sharaf iyo weji iyo wanaag buuna dalka ooga tegay marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa qof isagoo kale inuu ummadda soomaaliyeed usoo saaro marka geeridu waa xaq qof walbana waa u dhimanayaa nina maalintiisa ma dhaafayo laakiin markuu qofka isagoo sharaf leh oo qiimo leh oo ummadiisa ay jeceshahay oo dhinto wax ka wanaagsan ma leh marka ilaahay ummadda soomaaliyeed ha badbaadiyo waxaana rajaynaynaa maaragtay in ilaahay samar iyo imaan laga siiyo isagana jannada firdawsiga ka waraabiyo kusoo gabagabaynaya amiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay doctor cusmaan axmed haraare oo aan khadka telefonka ku tiigsanay isagoo jooga magaalada minneapolis ee gobolka minnesota stuudiyaha radio ogaal caawa waxaa nala fadhiya doctor qaasim xirsi faarax doctoresa siciida cali maxamed doctor maxamed ibraahim doctoresa siciida cali maxamed kusoo dhawow oo tacsida insha allah soo gudbiya asalaamu calaykum waxaan barlabaad mahad weyn u celinayaa fursadda qaaliga ah walaalkii xasan mar labaad siiyey waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto anigoo ku hadla anigoo siciida cali maxamed ah kuna hadlaya magaca reer cali maxamed xasan iyo reer xasan maxamuud meel kastoo adduunka ay joogaan iyo reer cali salaad gaar ahaan hooyaday khadiijo cali salaad waxaanu aad halkan tacsi oga diraynaa inagoo reer maxamed xasan iyo reer cali maxamed reer cali salaad ah ehelkii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday prime ministerkii hore cabdirasaaq xaaji xuseen caruurtiisii oo dhan ehladii oo dhan iyo gaar ahaan soomaaliyoo dhan waxaanu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay jannadii ka waraabiyo qabrigiisana u waasiciyo adduunka sharaftu ku lahaana inuu ilaahay aaqiro mid ka weyn uu ilaahay ku siiyo annagana ilaahay inuu nooga daba naxariisto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دقيقة هودا أياد كجرتا فضلا مقعاق الشيخ تعسيدنا سوق دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام يا هذه دمان راديو قال. مقعيق وفاضمة عبد الله جيدي وحان كصاوة عتمها يا هاملتون أونتاريو وطنك كندا وحان هالكان تعسيتي رايا لو قدرها يا dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka tegey allah u naxariisto cabdirasaaq xaaji xuseen ahaana ra-iisul wasaarihii labaad ee soomaaliya وهاجاج آدي آدي أضم صنطاي دقيقة هودا يا كجتا فضلا مقع شيء تعسيدنا سوق دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وقال وين سلامي حسن كرتي وحسن عبد الله وهرية وحن إنا لله وإنا إليه راجعون أن لا يهي علي جيسي سوماليات أو جريولي الله نحرسه عبدالرزاق حاج حسين ومد سوماليات دمان وكلمتين من كلية كمو أسلمني reerna kama dhiman haddii buntland lagu duubiyo haddii xamar lagu duubiyo meel kastoo lagu duubo wuxuu shaqaystay ayuu leeyahay ayuu ku qaadanayaa marka sharaf waxaa noo ah allah u naxariisto ilaahay gurigiisa u qawajiyo axmed cabdikariim walaayo cantar oo dhammaan isboortiga nord america mas-uulka ah انت كاب درايفر او نظيف السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عيارتي قرنك الصوماليه عنتر دغيسه هودا اياد كجرتا فضل مقعاga sheeg taxsidana soo gudbi السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حسن واك سلامينا لله وانا اليه راجعون مقعي وحل يرادا احمد عثمان يوسف احمد عيد احمد عيد سو دhowow waxaan u tacsiinayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan gaar ahaanna reer xaaji xuseen meel kasta ay joogaan dunida taaleeda ka joogaan aniga iyo xaaskayga iyo caruurteedii waxay dhaleen oo dhan waa u tacsiinaynaa cabdirasaaq wuxuu ahaa nin oday ah Soomaaliyeed geesi ah karti badan daacad ah si fiican baan u aqaanaa waqtigiisii waa shaqaynayay waa isku soo gaarnay waxaan xasuustaa hadal ويري الوم جوست البوست جوست يعني قفل باوح يستاهلوا مش يستاهلوا أيو تجيا معناها قفل باوح باش حكموا عدالة إن عدالة كشغيب وها إن أمة السمن بوها
nin soomaali u soo halgamay xorriyaddeeda meel fiicanna ka qaatay buu ahaa marka waxaan leenahay ilaahay qabriga ha u waasiciyo jannada ha ka waraabiyo ilaahay kitaabkiisa midigta ha ka siiyo magac fiican buu ka tegey taariikhdana adduunka baal dahaba ayuu kaga jiraa marka sidaa darteed xasan waa mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تعسي إنا لله وإنا إليه راجعون أبا ديريا حسين عبد الرزاق ديريا حسين عبد الله ديريا حسين محبط ديريا حسين حليمة ديريا حسين عاشا ديريا حسين وحيدا ما عندك كان تعسي ودريام خير دا هرقاني ميل كستوي كتشوغان دريدا دا على ذا وحين وقت تعسيديني يان قيريدي كتبد هو يدود naxariistii janna allaha ka waraabiye faadumo xaashi xanaf oo ku geeriyootay magaalada toronto waxay marxuumadda ilaahay uga baryaan inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo qaraabadii xigtadii iyo ehelkii ay ka baxdayna uu samir iyo iimaan ka siiyo aamiin 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 cabdiraxmaan maxamed jaamac shafka cabdullaahi maxamed jaamac shafka cabdinaasir maxamed jaamac shafka cabdicasiis maxamed jaamac shafka cabdirasaaq maxamed jaamac shafka iyo dhammaan reer maxamed jaamac cali shafka meel kastay ka joogaan dunida dacladeeda waxay tacsi u dirayaan qoyskii iyo eheladii uu ka baxay naxariistii janno allaha ka waraabiye marxuum cabdirasaaq xaaji xuseen oo ku geeriyooday magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxay marxuumka ilaahay uga baryaan inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo qaraabadii xigtadii iyo ehelkii uu ka baxayna uu samir iyo iimaan ka siiyo aamiin 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 tacsi taa lamida waxay u dirayaan dhammaan reer nuur xirsi meel kastoy ka joogaan dunida dacladeeda waxayna uga tacsiyadeynayaan geeridii ku timid naxariistii janno allaha ka waraabiye marxuum yaasiin nuur xirsi oo dhowaan ku geeriyooday magaalada boston waxay marxuumka ilaahay uga baryaan inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo qoyskii ehelkii iyo qaraabadiina uu samir iyo iimaan ka siiyo aamiin 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 tacsi إنا لله وإنا إليه راجعون عمر آدم كوكاي إيا حاسكيسة بحسن محمود علي شكري آدم كوكاي إيا حاسكيسة فوسية أحمد علي أحمد آدم كوكاي إيا حاسكيسة فاطمة حسن إيا ضمان غير آدم كوكاي ميل كستوي كتشوغان دونيدا دعالة ديدا وحي تعسيو دريان reer xaaji xuseen meel kastoy ka joogaan dunida dacladeeda waxayna uga tacsiyadeynayaan geeridii ku timid naxariistii janno allaha ka waraabiye cabdirasaaq xaaji xuseen oo ku geeriyooday magaalada minneabolis waxay marxuumka ilaahay uga baryaan inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo qaraabadii xigtadii iyo ehelkii uu ka baxayna uu samir iyo iimaan ka siiyo aamiin 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 tacsi إنا لله وإنا إليه راجعون سعيد يوسف ديريا أولغونا نيسا برادر سعيد إيا ضمان غير يوسف ديريا ميل كستوي كتشوغان دونيدا دعالة ديدا وحي تعسو دريان غير حاج حسين ميل كستوي كتشوغان دونيدا دعالة ديدا وحي نوغا تعسيدينيان غيريدو كتب النحريسي جمع الله كورابيه عبد الرزاق حاج حسين waxay marxuumka ilaahay uga baryaan inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo qaraabadii xigtadii iyo ehelkii uu ka baxayna uu samir iyo iimaan ka siiyo aamiin 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 waxaa stuudiyaha nala fadhiya doctor qaasim xirsi faarax waxaa noo hadhay 3 daqiiqo 2 daqiiqo ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون انت كدب ولا ليال آياداس آد بي تعسيد أقصيسا marka waxaan jeclaan lahaa inaan fursadan uga faa'iideysto in aan inta
nool aan ogaano dariiqa aan ku soconno oo ah marka hore haddii xil naloo dhiibo in marka aan dhimanno waxyaalaha nala ku qiimaynayo ay ugu horeynayaan wax aan kaga tagnay adduunka marka aad inta xil soo marto aan hadhowta aad dhimato ee daarihii aad ka tagtay dadku soo maraanba ogow inay ku soo lacnadayaan oo u arkayaan inaad hantidoodii ka dhisatay waxaan ku qiimaynaynaa intii xil noo soo qabatay waxa ay adduun kaga tageen inay bangiyaal lacagi uga buuxday inay daaro dheerdheer ka tagteen in ay beero waaweyn ka tagteen intaas baan ku qiimaynaynaa middaas kadib waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa in aan dhammaanteen Soomaali meel walba aan joogno sida aan maanta tacsidaas heer qaran ah uga wada qayb galnay in aan uga qayb galno in dhulkeenii Soomaaliyeed maanta ay tacsi u taalo dawladnimadeennii ay dhimatay dhulkeennii uu dhintay agabkeennii ay burbureen badeennii wixii ku jira khayraadkeennii uu dhacan yahay halkaa marka aan joogno Soomaalinimadeennii oo dhan baa maanta tacsi u taalaa sidii tacsidaas waan ka noolaan karnaa aan u noolaan lahayn inaan arrintaa ku dadaalno baan aad iyo aad idinku gubaabinayaa waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحان آد وحنا هيدويناها بقولال كجاري خدك تلفون كوتشر إنه ونقدر ماذا حلقي تعسيده وحان كسو جبينا دكتور قاسم حرسي أو معلم كجامعة يورك يونيفرسيتي مجالة تورونتو أيام كو جبينا وانا جو حسن عبد الله عمر كراتيو إذن وين تضبط قدام بهدو الله ودر أقلاده شوهر سيدا يريد الدشاي قد كهاتو